السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Khalid Cabdirashiid YouTube channelka daawanaysidna waa ka faa'iideyso. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay farqiga u dhexeeya hogaamiyaha iyo maamulaha. Sidaad u ogaatid nala soco. Ayara, maanta qomati, anu waxaan ahay booskii. Gebigiina waa inaad qabataan waxaan anu idhaahdo. Haa macalin waxaad tahay booskii. Maxaad tiri niibi? waxaan yidhi waad saxsantahay macalin, waxaad tahay boos. xitaa waxaad tiri adoon diidanayn. Waa sax. waa sababtaan u jeclaystay maanta inaan wax ku siiyo. Waa maxay niibi? waraaqadeeda iscasilaadda. Ama kaa dhaba niibi, ma doonaysid inaad halkan u shaqaysid miyaa? Khalid weyn. ka shaqaale cusub ahaan xirfadahaaga hogaamineed ayaa ga dhigay inaan warwaro. haddii aanad waxba u arkayna waxaan jeclaan lahaa inaan ku siiyo dhowr kelmadood. Maxaad i bari kartaa? Ma sugi karo, soo daa waxaad haysid. waa si fiican mudane. uma malaynayo inaad wada xun tahay, laakiin meel ka mida jidkaaga ayaad ku dhex dhuntay. waxaan filaya inaad hore hogaamiye ahaan jirtay, laakiin imika keliya ta waxaad tahay boos. Maxay ku kala duwan yihiin? boosku wuxuu idhaahdaa aniga, hogaamiye wuxuu idhaahdaa annaga. madaxda waxay indhatiray kibir xaggay hogaamiyaashu si dhaba wax u arkaan. hogaamiyuhu had iyo jeer waxu weydiiyaa madaxduna amarray bixiyaan. boosku faruu u taagtaagaa, laakiin hogaamiyuhu gacantuu fidiyaa. boosku wuxuu idhaahdaa socda, hogaamiyaashu waxay idhahdaan ina marya. hogaamiyaashu way tixgeliyaan fikradaha, madaxdu waxay idhahdaan nagala tag waxan. boosku hoos buu kuu ridayaa xagga uu hogaamiyuhu kor kuu qaadayo. hogaamiyaashu jacayl bay bixiyaan, boosku ma bixiyo. Maxay? madaxdu way ku danaystaan dadka wayna ku xadgudbaan. hogaamiyaashu way qadariyaan dadka waxayna eegaan waxa fiican ee ku jira gudaha wayna wanaajiyaan dadka. hogaamiyaashu waxay maariyeen tabaha dhiirigelinta, madaxdu waxay maariyeen tabaha wax xukumidda. boosku wuu qayliyaa wuuna cabaadaa sidii inuu ku jiro TV show oo kale. hogaamiyuhu waardiyaha ayuu la dhaqmaa sida maamulka ugu sarreeyo kale. way naxariis badan yihiin, waxayna ogyihiin inay bulshadu wax kasta ka horrayso. boosku wuxuu u maleeyaa inuu dhaqanku yahay shay keliya toon caana fadhiga laga helo. mudane, weydii naftaada su-aashan. anu isku midda inaan macallin kuu noqdo, laakiin hore ma u maqashay maamule adduun? Maya ma maqal. miyaanay ahayn hogaamiye adduun, hogaamiye diimeed, hogaamiye bulsho, hogaamiye ganacsi? miyaanad arkayn? hogaamiyuhu waa kala raba inaad noqotid booska keliya tawaxya. mudane, ganacsatada waxa saaran mas-uuliyad weyn. waxaan aaminsanahay inaynu annagu keliya tanahay dadka caalamka badbaadin karaa si xaraf xaraf ah, ma aha siyaasiyiinta, mana aha dowlad. waxaynu sidaas samayn karnaa markaynu mid mid ugu adeegno baahiyaha sare macaamiisheenna. Macaamiisheenna? laakiin laga yaaba inaad u malaynaysid in adeegga wanaagsan aanu meel fog ku geynayn, sidoo kale raasamaalkeenu hoos u dhacayo. Raasamaalkeenu? henry ford arrinkan uu ka warwari lahaa, waayo wuxuu yidhi ganacsi u go'an adeegi wax yeelan doona shay keliya too faa'iidooyinkiisa laga baqo. Waa maxay? waxay noqon lahaayeen qaar aad u weyn. mudane, kani waa hadal weyn, miyaanay macno samaynayn? waxaynu halkan u joognaa sidaynu ugu shaqayno riyooyinkeenna keliya tamaha mushaar. waxaynu halkan u joognaa inaynu noqonno qaar cajiib ah oo xiisaaburaya, maaha qaar dhaqdhaqaaqaya, laakiin qaar wax beddeli kara. faa'iidadu waxay timaadaa markaynu si daacadnimo ah ugu horno aragtideenna. waxaynu yeelan doonnaa ROI weyn ku noqoshada ujeeddadeenna. mudane, waxaan si daacadnimo u rajaynaya inaad beddeshid waddooyinkaaga kana adkaatid caqabadahaaga. waxaad halkan ku bartaa waxyaabo badan oo hogaaminta ka mid a, inta badan inaan wax la qaban. Sug. Sideed u ogaatay waxaan oo dhan? waxaana tiri raasamaalkeenna. yuu yahay ninkani? runtu waxay tahay inaan been sheegay. ma yihi shaqaalahaaga mudane. yaa tahay? adigaa ii ah. waxaan ahay mulkiilaha shirkaddan. waxaanad u baahantahay inaad hal iyo laba ka baratid shirkan. beri subaxna shayga koowaad waxaan doonaya inaan kuu arko shirka guddiga.